walaal badana ardayda Soomaalida ee Suudaan loo waxbarashada bilaashka la siiya badana waa waxbarashada way jiraan jaamacado leh meelo la dego oo guriyo la dego leh way jiraan sida jaamacadana aan ugu dhigto kale jaamacado gobol ku yaalo oo la way jiraan laakiin badana waxay dadyogu iska degaan guriyo ay iyagu kireystaan noloshooda kale cunto iyo waxyaabaha kale iyaga badana dadku isku qaba oo iska kafeeya waa hagaag marka noloshu waa sidaas bal ardada ka waran marka sidee u soomayaan maadaama oo ay guriyo gaar degan yihiin nolosha sidee isku maarayaan ramadaanka walaal horta waxyaabaha dadyoga reer Suudaan Suudaanta dalkan la noolnahay ay kaga duwan yihiin dadyoga kale waxa kamid ah inay takaaful jimaaciga bisha Ramadaan uu aad u sareeyo oo dadyoga reer Suudaan sidii dalkeena qof walba gurigiisa ku afuri jiray yani qofka dadka loo la afuri karaa walaal waxa lagu afuraaba Suudaan sida caadada ka ah shawaaricda wadooyinka masaajidada qof walba gurigiisa wixii uu haystay uu ka soo qaataa banaanka uu la soo daadegaya wadadaas caawiya la dhiganaya qofkii martida ahaa ee wadada socday ee gurigiisa afurka ka gaari waayay kii kale ee miskiinka ahaa ee waxba haysanin badana reer Suudaan horta dadka reer Suudaan sidaas ay u afuraan marka waa dhaqanba qofku inuu gudaha cuntadii uu ku cun lahaa guriga dhexdiisa uu banaanka keeno dadkuna ay la wadaagaan walaalaha Suudaan badana sida dadkuba way ka arkeen waa dad waxyaabaha dhaqanka aad ugu wanaagsan yihiin takaaful ijtimaaciga ka qayb qaato waxa kamid ah in wadooyinka lagu afuro oo intii meel wada deganba wadada hoosteeda soo daadegto oo wixii ay gurigooda hayeen ka soo qaadaan qofkii miskiinka ah iyo qofkii xataa afurka ka gaari waayay ee wadada sida caadada ah Suudaan waa la joojiyay xataa gawaadhida xilliga afurka oo dadku way istaajiyaan dadku halkaas ay deetana kula afuraan waa dhaqan cajiiba ma waxa taageerta dawladda mise waa dhaqan ay bulshadu caadi u leedahay oo muddo dheer soo socday walaal anigu waan ugu nimidnay imka anigu shan Ramadaan baan Suudaan ku soomiyay waan ugu nimidnay oo waa dhaqan ay reer Suudaan leeyihiin oo dadka Suudaantu waa dad aad u karam badan oo dadka sharfa oo iyagu dhexdooda sharfa marka waa dhaqan iyagu Suudaantu leeyihiin inay meel wada afturaan oo qofkii baahan iyo kii wadada socday bas ay wada afuraan ay meel wada afraan waa dhaqan ay Suudaantu leeyihiin oo aad u soo jiray sidaan ka warqabo oo waqtiyo badan soo socday weeyaan marka idinka haddaad tihiin ardada Soomaalida ma dhaqankaas ku dhex darsatiin oo idinkuna banaankaad ku afurtiin mise sidii Soomaalidu dhaqanka u lahayd baad badana gurihiina wixiina ku samaysateen walaal way isku jiraan dadku way jiraan dad badan oo maadaama ardayduna yihiin arday aad u far badan oo 5,000 gaaraya inay dadka la degan meesha ay la degan yihiin ama hadii masaajidka lagu afurayo hadii wadada lagu afurayo inay la afuraan way jiraan dad yow qaar maqaxiyaha Soomaalida kala ka afura oo iyagu halka u doonta way jiraan dad yow guryahooda dhexdeeda ku sameeysta way jiraan qaar iyagu iftaar jamaaciya oo si jamaaca ahaan u sameeysta oo intay isku dhow yihiin ama iskuul ka soo baxeen ama isku gobol ka yimaadeen waxyaabahaas oo dhan baa jira waayaa waxa saamaxaysa ardayda oo aad u fara badan marka wani aad bani ula tacaamulaan oo dadka way la afraan banaanka way kula afraan dadka Soomaalida waa hagaag marka ay timaado marka cuntooyinka bal nooga waran Cabdi Fataax oo Suudaan maxaa laga adeegsadaa xilliga Ramadaanka anagoo ogin Soomaalida ay badana leeyihiin cunto dhaqameed ay ku afuraan xilliga bisha barakeysan Suudaan maxaad ku heshiin walaal horta waxoogaa waa kala duwanaansho way jiraan cunto walaal dadku kulli la qabsadaan oo cuntooyinka aasaasiga ay Suudaantu leeyihiin cuntooyin caziida la yiraahdo oo la sameeyo ay kulli iyagu sameeyaan kisra kuraza waxyaabaha aasaasiga oo ah nolosha Suudaanta iyo dhaqanka Suudaanta oo ay iyagu isticmaalaan baa lagu afuraa kulli cabitaanada iyo waxyaabahaasna liin macaanta oo kale canbaha waxyaabaha Soomaalidu taqaano waa ku jiraan waxyaabahan aqoonin oo xilwa mur wax la yiraahdo macaan qadaad geed iyaga u baxo kale kirkida la yiraahdo waxyaabahaasna way ku afuraan suxuurtana walaal suxuurta badana dadku maadaama waqti habeena tahay badana la iskuma soo baxo oo yaani sida afurka kale looguma afurash wadooyinka laakiin guriyaha lagu sameystaa dadku marka guryahooga caadi cuntada caadiga ay dhalinyartu guri wala degan tahay oo karsanayaan oo cuntooyinkeena caadiga ay bariiska ama qamadiga ama waxyaabahaas oo dhan ama galleyda ama soorto kale waxyaabahaas laga helaa marka guriyaha waxa lagu karsadaa suxuurta